السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحنا جنال كمر كلا سود وذا أدي هذا ومهتمين بنت وقميص وأنا تطبيل واتنك بشيء سديدات أغسطس سنة كلا بدأ كون اللحية لباتنك مقال كان محرب إن نذكر وذاقه لبنان أو صوماليا أو كأدسنا كيسكي فيدنا والفيوجر cuntadii la musuq maasuqay caruurta loogu talagalay xilligii coronavirus-ka in lagu quudiyo oo 300 milyan kor u dhaafaysay laba nin oo dambigooda hore u qirtay ayaa shalay la xukumay. haddaba imise sano ayaa lagu xukumay, maxay maxkamadda ka yiraahdeen markii la xukumayay, raaligelinta ay bixiyeen maxay tahay, lacagta ay dawladda u soo celinayaanna maxay dhan tahayna sidoo kale waan idinla wadaagaya. askarigii ka tirsanaa ciidamada ICE ee ku xirnaa gobolka Texas oo gudoomiyaha gobolka Minnesota uu dalbaday in loo soo dhiibo gobolka Minnesota xeeraryaha guud ee gobolka Minnesota iyo sidoo kalena xeeraryaha degmada Hennepin iyaguna ay dalbadeen in gobolka Minnesota uu gobolka Texas u soo dhiibo, laakiin gudoomiyaha gobolkaasi uu diiday ayaa shalay garsoore waxa uu xukmiyay in xabsiga maanta laga sii daayo. waxaana gobolka Minnesota uu leeyahay gudoomiyaha gobolka Texas ayaa mas'uul ka noqonaya ninkaasi haddii wadanka Mexico uu cararo halkaasi oo haweeney saaxiib uu leeyahay ay degan tahay. arrintaasina sidoo kale waan idinla wadaagaya, balse marka hore soo dhawaada. kiiskii Fidina Warfuger oo nagnahay Soomaali fara badan inay ku lug lahaayeen gobolka Minnesota oo lacagtii 300 milyan ahayd lagu musuq maasuqay xilligii coronavirus-ka loogu talagalay caruurta in lagu quudiyo ayaa weli dadka la xukumaya ay weli jiraan oo dad kala duwan xukunno kala duwan lagu ridaya. haddaba maalnimadii shalay ahayd ayaa garsoore Nancy Pelosi waxay xukuntay laba nin oo Soomaali ah kuwaasi oo ku lug lahaa kiiskaasi Fidina Warfuger isla markaana dambigooda qirtay. ninka koobaad waxaa la yiraahdaa Cabdixakiim Cali Axmed oo 41 jir ah. shalay ayaa waxa lagu xukumay 54 bilood oo xabsi ah oo u dhiganta 4 sano iyo bar ku lug lahaashihiisa kiiskii Fidina Warfuger. dacwadoogayaashu waxa ay sheegeen in Cabdixakiim uu maqaaxi la yiraahdo Gurley Deli uu ku lahaa Maplewood Minnesota isla markaana uu sheegayay in maalin kasta uu quudinayay 2 ilaa 3 kun oo caruur ah 7 maalmood isla markaana 1.6 milyan oo cunto uu bixiyay intii u dhaxaysay September 2020 bishii 9 ilaa iyo sanadkii 2021. waxaana dacwadoogayaashu ay sheegeen in Cabdixakiim ay jireen rag kale oo kiiskan kula jiray isla markaana lacagta lagu eedeynayay ay gaaraysay inay qaateen ilaa iyo 7.3 milyan oo dollar. marka Cabdixakiim waxa uu dambigiisa qirtay bishii March ee 3 ee sanadkii 2025 dambiye ah wire fraud iyo money laundering ayuuna qirtay. dacwadoogayaashu waxa ay dalbanayeen 57 bilood in lagu xukumo, taasi oo 2 sano iyo 8 taasi oo 4 sano iyo 8 bilood u dhiganta, halka qareenadiisuna ay dalbanayeen in 24 bilood lagu xukumo, taasi oo ah 2 sano, laakiin garsooruhu waxay ku xukuntay 54 bilood taasi oo u dhiganta 4 sano iyo bar oo xabsi ah. marka Cabdixakiim waxaa jirta sidoo kale in uu dawladda u soo celinayo lacag gaaraysa 2,242,590 dollar in uu dawladda u soo celinayo. Cabdixakiim waxa uu iska lahaa company la yiraahdo Asa Limited LLC isla markaana waxa uu shaqadeeda ay bilowday 3 toddobaad kadib markii la diiwaan geliyay, waxaana uu sheeganayay in caruurtaasi 2 ilaa 3 kun u dhaxaysa maalin kasta 7 maalmood uu quudinayay. sidoo kale Cabdixakiim waxa uu qirtay in lacag ka badan ilaa 49 kun oo dollar oo laaluusha ama kickback uu siiyay Cabdikariin Iidle waa ninkii bishii June dhamaadkeedii laga soo qabtay Muqdisho, haddana Minnesota ku xiran isagana kiiskan loo haysto oo markaasi Fidina Warfuger u shaqaynayay in uu siiyay lacagahaasi kickback ama laaluushka ah, taasi uu doonayay in laga qayb geliyo barnaamijkan Fidina Warfuger isla markaana kambanigiisa loo ogolaado. waxaana uu sheegay in lacagtaasi ay ahayd lacag uu siiyay in Cabdikariin Iidle si barnaamijkan loogu ogolaado. markii la xukumayay ka hor ayaa uu hadlay Cabdixakiim Cali Axmed raaligelintan ayuu bixiyay. waxa uu yiri waxaan raaligelin ka bixinayaa falkaasi dambiga oo ah in lacagtaasi aan caruurta ka xaday, isla markaana waxa uu sheegay in ay ahayd waqtigii ugu xumaa ee noloshayda, marka aad ayaan uga xumahay, si aad ayaan arintaasi uga xumahay uu yiri. marka Cabdixakiim waxa uu xabsiga iska soo xaadirinaya, hadda ma uusan xirnayn, banaanka ayuu joogay. shalay maxkamadda markii la xukumayna kadib waa la fasaxay, marka bisha 10aad 6deeda ayaa xabsiga uu iska soo xaadirinaya Cabdixakiim. waxaa sidoo kale isla shalay la
xukumay Axmed Geedin la yiraahdo oo 37 jir ah isagana waxaa lagu xukumay 5 sano iyo bar oo u dhiganta ilaa iyo 65 bilood waxaa sidoo kale dacwadoogayaashu ay markii hore doonayeen 63 bilood ilaa iyo 78 bilood in lagu xukumo marka la soo daayo Axmed Geedi sidoo kale waxaa jiri doonta 2 sano oo lala soconayo dhaqdhaqaaqiisa marka la soo daayo kadib waxa sababta xabsigan loogu xukumay 5 sano iyo bara ayaa Axmed Geedi waxay tahay in horey qof dambi uu u soo galay oo ahaa waxaana dawladda u soo celinaya lacag dhan $2,862,451 ayaa isaguna uu dawladda u soo celinaya markii la xukumay isaguna waa uu hadlay waxaana uu raaligelin ka bixiyay waxa uu yiri waxaan raaligelin ka bixinayaa dambiyadii aan geystay waxaana sidoo kale aan raaligelinayo qoyskayga iyo waliba community-gayga waxaa sidoo kale jirta in lacagahan ay qaateen raggan ay ku iibsadeen waxyaabo ay la mid yihiin gawaari qaali ah hub guryo waaweyn iyo sidoo kalena in lacagaha credit cardka kaararkooda ay ku isticmaalayeen amaba ay ku qarash gareynayeen isla markaana waxa ayna hadda asagana la filaya in Axmed Geedi uu xabsiga iska soo xaadiriyo 6 bisha October ee soo socota ayaa isaguna uu xabsiga iska soo xaadirin doona ugu dambeyntii 2 maalin ka hor waxaan idin sheegay gobolada Minnesota iyo Texas inay isku haystaan isu soo dhiibista nin ka tirsan ciidamada ICE xilliga ay socdeen howlgaladii Operation Metro Surge oo Minneapolis iyo St. Paul ka socday ninkaas ciidamada ICE ka tirsan oo magaciisa la yiraahdo Christian Castro waxa uu gobolka Texas ku xiran yahay ilaa iyo dhamaadkii bishii shanaad ee May waxaana gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz uu ka dalbaday gobolka Texas inay u soo dhiibaan bishii June horaanteedii talaadadii la soo dhaafay waxa shir jaraa'id qabtay xeeralyaha guud ee gobolka Minnesota Keith Allison iyo xeeralyaha degmada Hennepin Mary Moriarty waxayna ka dalbadeen gudoomiyaha gobolkaasi in gacanta loo soo geliyo Christian Castro si loogu maxkamadeeyo gobolka Minnesota laakiin gudoomiyaha gobolka Texas arintaasi waa uu diiday sidaas darteed maxkamada ayaa la isla tagay shalay marka garsoore maxkamadeed waxa gobolka Minnesota uu dalbanayay ninkaasi inta kiiskiisa isu soo dhiibista labada gobol ay ka heshiinayaan in xabsiga lagu sii hayo sida sharciga gobolka Texas uu dhigayana 9 maalmood qofka hadii uu xirnaado waa in la sii daayaa hadii aan la maxkamadeynin amaba sidoo kalena aan loo dhiibin gobolka ay dacwadu ay uga furan tahay marka 9kii maalmood maanta ayay ku ekayd waxaana garsooruhu shalay u amray in ninkaasi xabsiga laga sii daayo gobolka Minnesota waxay leeyihiin ninkaasi hadii la sii daayo gabar uu xiriir la leeyahay Mexico degan inuu dhulka iibsadayna waa la sheegay marka waxa uu doonayaa inuu wadanka Mexico uu u baxsado sidaas darteed waxa uu gudoomiyaha gobolka Texas uu ku adkaystay in gobolka Minnesota uusan ninkaasi u gacan gelinaynin ninkan ciidamada ICE ka tirsanaa oo Christian Castro la yiraahdo waxa lagu haystaa in 14 bishii January horaantii sanadkan uu dhaawacay nin wadanka Venezuela ka soo jeeda oo magaciisa la yiraahdo Julio Sosa Celes inkastoo dhaawacaasi dhaawac aad u daran uusan ahayn marka gobolka Minnesota ninkan 5 dacwadood oo kala duwan ayuu ku soo ogay waxa qayb ka ah in ninkan markii uu dhibkaasi geystay kadib uu been ka sheegay uu yiri ninkaasi waxa uu doonayay in ciidamada ICE oo waxyeeleeyo marka xeeralyaha degmada Hennepin Mary Moriarty ayaa waxay sheegtay in gudoomiyaha gobolka Texas uu mas'uul ka noqon doono hadii ninkaasi Christian Castro oo wadanka Mexico u baxsado maxaa yeelay isaga ayaa diiday inuu saxiixo waraaqaha loogu soo dhiibayo gobolka Minnesota marka ninkii ICE ka tirsanaa oo gobolka Minnesota uu doonayay in loo soo dhiibo gobolka Texasna uu diiday shalay garsoorahaasi ayaa wax u amray in maanta xabsiga laga sii daayo maadaama 9kii maalmood ay maanta ku egtay hadaba waatan xeeralyaha degmada Hennepin Mary Moriarty oo arintaasi ka hadlaysa You can choose to stop harboring a fugitive from justice by simply signing the extradition paperwork today. Let me be clear. If Christian Castro walks out of the door of the jail and disappears into Mexico, it will be the fault of one person, Governor Greg Abbott. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo